السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتين خالي كسر هذا القناة كان فضلنا هدية نقعد سبسكرايب نوده بالكنا فرا maxay hayto haddii aa hore nool joogtana noo share gareey maanta waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala waxyaabaha si dabiiciga ah insha allahu tacaala hooyada u fududeyn karo dhalmada ama xilliga foosha. ilaah ayaa wax walba fududeeyay laakiin dadaal ayaa lagama maarmaan ah. sida halkan uga jeedtaan waxaa idin muuqda waa timir maasha allah. timirta aad ayaa maxay haytood loogu bogay iyo weliba caanaha haddii aad isku shiidito oo cabitaan ka dhigato bisha 9aad markaa gasho insha allahu tacaala wax walbo ilaahay uu ku fududeynayaa. hadda wax walbana waa sidaad u aaminto. haddaa ilaahay tala saarato alaabtaana isku shiidato oo cabto way ku anfacaysaa insha allahu tacaala. timirta waxaa ku jira fitamiino fara badan ku jiro hooyada xitaa tamar ayay ka helaysaa bisha 9aad. maxay haytood caanahana waxaa ku jira calcium lafaha ayuu ku adkeenayaa. sidoo kale timirta iyo caanaha waxay waxay ku sameynayaan firfircooni murqaha ilma galeenka. sidoo kale afka ilma galeenkana aad ayay u jilcinayaan si uu hadhowt ugu sahlanaato si uu babygu u soo maro insha allahu tacaala. marka waxaa laga rabaa inaad nafsadaada ku dadaasho ilaahna aad tala saarato. waxyaabaha dabiicigaane wax ka wanaagsan ma jira. hadda timirta iyo caanaha hooyada aad ayay u saacidayaan. maxay haytood qofkii laazima bisha 9aad markuu galo timirta iyo caanaha insha allahu tacaala aad ayay ugu fududaanaysaa. oo hadduu murqihii ilma galeenka si wacan u shaqaynayo oo maxay haytood riximkii afkiisana uu aad u jilcinayo si ay usoo maraan maxay soo hadhowt usoo maro babyga. marka murqihina wuu ku firfircooni geliyaa oo jirkaada nashaad siinaysaa. timirta xitaa waxaad ugu maarmin kartaa raashinka aad cuni lahayd. maxay haytood in badan raashinka way ka go-aan hooyooyinka bilaha dambe. marka ha isku cunin bilaha maxay haytood adiga hadday yar yihiin timirta. inkastoo dadka qaarkiis ayna waxba ka dhibin laakiin inta badan dadka waxay dhahaan lama cuni karo. marka maxay haytood bisha 9aad aad markaa gasho haddii aad ka gaari weyso xitaa kaligeed daagooni cunto caanahana aad ka dabcabto ise okay. haddii aad maxay haytood aad isku shiidan karto fursadaas aad heli kartana isku shiido cabitaan ka dhigo maalinka 2 galaas camad ka cab insha allahu tacaala. murqahaadii iyo meel walbo firfircooni adiga xitaa nashaad ayay ku siinaysaa iyo firfircooni. maxay socodkana ku darso haddii aad labadan cabto socodna aad ku darsato insha allahu tacaala wax walba alla xaggiisa ayay ka fudud yihiin laakiin sida la rajaynayo aad ayay kugu fududaanaysaa insha allahu tacaala.